Qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay saddexdii nin ee godka ku xayirmay. Nebigeena sallallahu calayhi wasallam ayaa laga wariyey qiso cajiib ah oo dhacday xilli hore. Wuxuu yidhi 3 nin oo ka mid ah qowm idinka horeeyey ayaa socdaal ku jiray. Markaasaa dabaylo iyo roob haleelay. Markaa kadib ayay god ka galeen. Dhagax aad u weyn ayaa ka soo dhacay buurta oo xidhay godkii ay ka bixi lahaayeen. Markaa bay isku dayeen inay dhagaxa iska leexiyaan, balse uma suurtogelin maadaama uu dhagaxu aad u weynaa. Mid ka mid ah ayaa yidhi, dariiqa keliya ee lagu samata bixi karaa waa in Alle lagu baryo magaca camal suuban oo aan Alle dartiis u samaynay. Markaasaa midka koowaad baryay Alle oo wuxuu yidhi, Rabbiyow, waalidkay aad bay u da'weynaayeen. Waxaan habeen walba u keeni jiray caano ay cabaan. Markay cabaan kadib ayaan carruurtayda iyo qoyska intiisa kale siin jiray. Maalin maalmaha ka mid ah ayaan aaday meel fog oon geedo ka soo raadsanayay. Xilli dambe ayaan soo noqday. Markaan caanihii soo qaaday oo guriga imid ayaan arkay waalidkay oo seexday. Waalidku wuu seexday, laakiin maan jeclayn in aan dhibo oo kiciyo. Mana aanan siin qayb caanaha ka mid ah carruurtayda iyo xubnaha kale ee qoyska. Markay waalidkay cabaan kadib baan siin jiray. Waxaan sugayay intay ka soo toosayaan ilaa uu waagu ka baryay, iyadoo carruurtaydii ay gaajo darteed ugu oynayeen cagahayga hoostood. Haddaad Rabbiyow og tahay in arrintan u sameeyey raalli ahaanshahaaga oo keliya, Ilaahu naga leexi dhagaxan godka nagu xidhay. Dabadeed, dhagaxii ayaa yara dhaqaaqay laakiin kuma filna in ay ka soo baxaan. Dabadeed ninkii labaad ayaa Alle baryey, Rabbiyow, waxaan lahay gabar adeerka dhalay oon si aad ah u jeclaa. Waxay ahayd gabar qurux badan. Waxaan isku dayay inaan sasabo oon guursado, laakiin way iga diiday. Ilaa xilli ay dhibaato weyn soo wajahday oo abaar dhacday, ay ii soo dhowaatay, iyadoo iga dalbanaysa caawimo. 120 diinaar ayaan siiyey oo ku xidhay sharuud ah inay ila sinaysato. Way iga oggolaatay. Markaannu isu nimi oo aan xumaanta samayn rabay ayay igu tidhi, Alle ka cabso, hana igu samayn waxaan Alle raalli ka ahayn. Markaasaan iyada ka fogaaday, inkastoo aan aad iyo aad u jeclaa. Lacagtii ayaan siiyey waana ka tagay. Rabbiyow, haddaan arrintaasi u sameeyey anigoo raalli ahaanshahaaga oo keliya raadinaya, Rabbiyow naga qaad dhibkan aan ku jirno oo dhagaxna inaga leexi. Haddana dhagaxii ayaa yara dhaqaaqay laakiin kuma filna inay dhaafaan. Dabadeed kii saddexaad baa Alle baryey oo wuxuu yidhi, Rabbiyow, waxaan lahaa shaqaale ii shaqeeya. Qaar ka mid ah shaqaalaha ayaan siiyey xaqii ay igu lahaayeen, laakiin mid ka mid ah ayaa ka tagay lacagtii uu xaqa u lahaa. Waxaan geliyey ganacsi. Ganacsiguna aad buu u horumaray. Muddo kadib ayaa ninkii xogsadaha ahaa soo noqday oo ii yidhi, Addoon Allow, ii dhib mushaarkayga. Waxaan ku yidhi, waxaad aragto oo dhan adigaa leh, geel, lo', adhi iyo addoon intaba. Markaasuu ninkii yidhi, ha igu dheeldheelin Addoon Allow oo ha igu kaftamin. Waxaan u xaqiijiyey inaysan kaftan ahayn. Markaa buu kaxistay dhammaan waxaan u hayey. Rabbiyow, haddaan arrintan u yeelay doonista raalli ahaanshahaaga oo keliya, dhagaxan naga leexi. Dhagaxii ayaa dabadeed dhaqaaqay. Godkiina waa uu furmay. 3diiba waxay ka soo baxeen godkii iyagoo nabad qaba. Qisadan waxaynu ka baranaynaa qaar ka mid ah camalada wanaagsan, kuwaas oo ay ka mid yihiin daryeelka waalidka, ka fogaanshaha dembiga, xitaa markuu qofku ku jiro ilbiriqsyada ugu dambeeya ee falkiisa, iyo in laga digtoonaado oo la ilaaliyo ammaanada ama mas'uuliyadda.